السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلامي والله ليال ما أنت وحن إذن هي خسآتيات مرق بدن آدن إيسا ميسي خسادان موضوع هذا وحويهي فراق بلا موعد. إن شاء الله وحن رجانيا إن السوعا أولغيسان دونتان خسادان وحيكو بلاوانيسا سيدتان waxay isguursadeen bilooyin ka hor kadib qiso jecel oo aad u qoto dheer sanooyin badanna qaadatay seegeedii wuxuu ka shaqayn jiray dukaan si aad ah ayuu u jeclaa ilaa uu ka yeelay inay nolosha jirkiisa ay jeclaato maalin maalmaha ka mid ah sida caadada u ahayd shaqadii ayuu waqti hore aaday way sagootisay waxayna ku sagootisay si galgacal iyo naxariis ku dheehan tahay wuxuuna u balan qaaday inuu soo qaadi doono fawaakih wuxuuna weydiiyey fawaakih noocee ayaan ku soo qaadayaa waxay ugu jawaab celisay waxaad adiga doonto ii soo qaad ninkii shaqada ayuu aaday xaaskiisana wuxuu kaga tagay ayadoo ku mashquulsan hawsha guriga markii ay hawshii dhammaysatay ayay daaratay raadiyaha waxayna bilowday inay dhegaysato heesihii ay jeclayd ayadoo kuriyoonaysa cunug yar kaasoo guriga siin doono farxad iyo diilo intii ay haweenaydu riyada sawiranaysay ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo argagax leh waxayna isdhahday talow maxaa ka dhacay magaaladan yar waxay isdhahday wax sidaa u sii weyn ma ahan waxaa laga yaabaa haraagii dagaalada wax ka haray inay qarxeen waxayna iska sii wadatay dhagaysiga heesaheeda ayadoo sugaysa saygeedii oo si daran u soo daahay albaabkii ayaa la soo garaacay markaas ayay canaan ku bilowday saygeedii ayadoo leh maanta maxaad qadada uga soo daahday albaabkii ayay u soo carartay laakiin qofka soo garaacay saygeedii muusan ahayn dariskii ayay ahaayeen ayagoo qaylinaya ayay ku dhaheen adiga intaayaad iska fadhidaa suuqan wuxuu isku rogay meel dadka lagu xasuuqay oo kale dadku waxay isku beddeleen hilbadadeed oo fardhisan ee saygaada ma ku soo wacay wixii la sheegayay ayay u adkaysan weyday xaaladeedii way isbeddeshay way miir daboolantay riyadii ay sawirinaysayna waxay noqdeen xanuun lagu beeray qalbigeeda sankeedii ayaa dhiig ka yimi sida ay tahayna dariskii ayay suuqa ula carartay suuqii waxay mooday horyashiima yar inay joogto oo kale boqolaal dato ayada oo kale ahna ayaa waxay raadinayaan dadkoodii qaraxa aad ayuu u weynaa burburkiisana aad ayuu u foolxumaa dadka xubnahoodii waxay ku milmeen miraha khudaarta hilibka iyo kalluunka wax walbana sidaa ayay ku burbureen iyaduna waxay ku qaylinaysay aaway ninkaygii xitaa aaway haraaga ninkayga meeshii ayay ku dhacday kuna miir daboolantay markii ay soo naxday kadib waxay ogaatay haraaga ninkeedii in loo soo ururiyey ninkeedii qarax meesha ka dhacay ayuu aad ugu dhowaa meesha ayuuna ku dhintay isagoo wada ama sida bacyaroo fawaakih ay ku jiraan markii ay 3 maalin tacsida dhammaatay qof waalan oo kale ayay isu beddeshay way sabri weyday suuqii ayay dhex soconaysaa waxay sifaynaysaa fawaakihdii waxay soo xasuusanaysaa sheekooyinkii iyo oraahyadii ay isdhaafsan jireen way qosli jirtay markuu su'aali jiray miro fawaakih noocee ayaan kuu keenaa waxayna ugu jawaabi jirtay waxaad jeceshahay ayaan jecellahay markaasuu si galgacal ay ku dheehantahay uu dhihi jiray adiga mirahaygii aan aad ku jeclaa ayaad tahay way iska oon jirtay qalbigeedii ayay ka sawiran jirtay isagoo ku dhahaya aniga waan kaa fogahay waan ku baryaa waxaan rabaa inaad ii soo dhowaato ilaahay amarkii tacsida markii ay dhammaatay maalinta afaraad ayadana way dhimatay waxay tagtay oo ay dhimatay ayadoo dhabankeedu ka muuqato ilmada murugta bishimaheeduna ka muuqdaan dhoolla caddayn